Qoraal oo ka soo baxay howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in koox Burcad Badeed Soomaali ah xeebaha Soomaaliya ay ka afduubteen doon kalluumaysi oo laga lahaa wadanka Yemen taa oo ay u adeegsanayeen weerar ay ku qaadaan maraakiibta maraysa xeebaha Soomaaliya. Burcad Badeedan ayay ku eedeeyeen howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya doontii ay ka qafaasheen xeebta badweynta India inay u adeegsanayeen weeraro ay ku qaadaan maraakiibta isticmaalaysa badweynta India, waxaana hoosta ay ka xariiqeen in markab marayay meel u jirta badweynta India 280 mayl xeebaha Soomaaliya. Ciidamada midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa sheegay in dhacdadaasi kadib ay direen dayuuradaha nooca sahanka ah oo heshay halka lagu haysto doontii Yemen laga lahaa ee Jimcihii hore ay afduubteen, waxaana kadib howlgal lagu qaaday lagu soo qabtay sida ay sheegeen 5 nin oo ka tirsaneyd Burcad Badeed afduubatay doonidaas. Doonida la afduubtay ayay tilmaameen inay saarnaayeen 23 qof